maxaa ka jira ciidamadii birjeex ee duleedka magaalada Doolow ku sugnaa ay u soo wareegsadeen duleedka magaalada Baydhabo garabna ay siin doonaan ciidamada madaxweyne Laftagareen kulamo gaargaar ah ayaa dhacay shir degdeg ah oo u dhaxeeyay saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan madaxweyne Laftagareen ayaa ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo gaar ahaan howdka ciidamadan ay ku sugan yihiin waxaan idin soo gudbin doonaa cabsi ka taagan magaalada Baydhabo xilli kasta oo uu dagaal qarxi karo iyo sidoo kale kulamada aadan madoobe oo ka wado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo waji kala yeeshay arinta la xiriirta aadan madoobe oo si cad loogu sheegay in aan marnaba markaas laga yeeli doonin in magaalada Baydhabo uu ku sii sugnaado maanta siyaasiyiintii ugu badnaa oo taageersan madaxweyne Laftagareen ayuu kulan kula qaadanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kuwaas oo dhawaan warbaahinta bulshada ku baahiyay qoraallo ay ku amaanayeen kuna garab istaagayeen madaxweyne Laftagareen sidoo kale waxaad maqli doontaan ardaydii imtixaanka ku gali lahayd Jaralaqsi oo guud ahaantoodba maanta aanan gelin iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Hirshabelle oo arrin la yaab leh ka dhawaajiyay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinkugu faaqidi doonaa saaxiibayaal Cumar Guux ayaan ahay halkanna waa nabad haddii ay tahay markaa kugu horeysaan soo booqato nagu soo bir saaxiibada la sii wadaag muuqaalkanna meel dheer nala gaarsiiya si aad u heshaan wararka degdega ah ayaan halkan ku baahino ee la xiriira arrimaha ammaanka arrimaha bulshada iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda waxaynu ku hormareynaa maamulka koonfur galbeed si gaar ah duleedka magaalada Baydhabo sidoo kale saraakiishii amniga ee madaxweyne Laftagareen ee duleedka magaaladaas ku sugnaa oo kulan degdeg ah uu ku dhexmaray howdka meelaha ay ku sugan yihiin maxaa kulankaasi looga hadlay arrimahaas oo dhan ayaan eegi doonaa ugaas xasan cabdi maxamed oo isagana ahaa afayeenkii dowlad goboleedka koonfur galbeed ee madaxweyne Laftagareen oo qoraal la yaab leh soo saaray shacabkana ugu baaqay inay adkeystaan muddo saacado ah oo uu dagaal socon doono ama daqiiqado ah oo uu dagaal socon doono taas oo guud ahaan Baydhabo looga saari doono ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waa sida uu sheegay aynu ku hormarno kulankan inta uusan dhicin waxaa la tilmaamay ciidan ka soo ruuqansaday dhinaca degmada Doolow ee gobolka Gedo oo isugu jira Faykonley iyo kuwa gaadiidka dagaalka watay saacadihii la soo dhaafay ee ka soo embabaxeen duleedka magaaladaasi Doolow ee gobolka Gedo ciidamadan qaybo kala duwan ay isugu jiraan qaar waxa xogta ay sheegaysaa inay ka yimaadeen degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose dhinaca xeebta ay mareen kadibna ka degeen magaalada Kismaayo markii Kismaayo ay ka degeenna dhinaca ilaa iyo Doolow ay soo raaceen gaadiid dagaal oo halkaasi ay keentay halka wararka qaarna ay sheegayaan in diyaarado inta ay halkaasi ka soo qaateen Doolow ay ku dejisay halkaasna ay gaadiid ciidan markaasi ka soo qaadeen sidoo kale ciidamadan waxa la werinayaa in sidoo kale ay qayb ka yihiin oo ay ku jiraan ciidamadii birjeex lagu magacaabayay ee maamulka Jubbaland uu lahaa kuna sugnaa duleedka magaalada Kismaayo ilaa iyo deegaano badan oo dhowr ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland waxaana la tilmaamay ciidamadan in loogu talagalay inay garab siiyaan kuwa madaxweyne Laftagareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah koonfur galbeed ee Soomaaliya ilo muhiim ah oo aynu xiriiro kala duwan la sameynay ayaa noo xaqiijiyay jiraanshiyaha wararkaas laakiin ilaa iyo hadda aysan jirin ciidan si sax ah u soo gaarin gudaha duleedka magaalada Baydhabo iyadoo laakiin la werinayo in hadalhayntaas ay ka dhex jirto baraha bulshada si gaar ah siyaasiyiinta amniga ama gaar ahaan saraakiisha amniga u qaabilsan madaxweyne Laftagareen ee duleedka magaalada Baydhabo ku sugan xilli kasta ay shaacin doonaan in ciidamo kale oo hor leh oo waliba hiil u ah ay ka yimaadeen dhinaca maamulka Jubbaland laakiin ilaa iyo hadda tiro rasmi ah oo ciidan ah iyo xog rasmi ah oo ciidan ah oo waliba ka yimid dhinaca maamulka Jubbaland oo ku biiray kuwa ku sugan magaalada Baydhabo lama xaqiijin mana jirto si gaar ah ciidamadan waxaa la werinayaa inay isu diyaar gareynayaan inay qabsadaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah koonfur galbeed ee Soomaaliya ciidamada birjeex markaan ka tagno duleedka magaaladaas kulan gaar ah ayaa ka dhacay oo u dhaxeeyay saraakiisha ammaanka iyo gaar ahaan kuwa madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaa la werinayaa kulanka inay qayb ka qaateen xildhibaan horey uga goostay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu hogaaminayay saraakiil ka kala baxday Dinsoor ilaa iyo meelo badan oo dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi Bay iyo sidoo kale Bakool qayb ka mid ah sidoo kale isla laamaha ammaanka ee halkaas ku sugan ayaana la tilmaamay in kulankan si gaar ah uu uga dhaxmaray duleedka magaalada Baydhabo waxaa inta badan diiradda lagu saaray sida aan xogta ku helayo in kulanka la isla qaatay si degdeg ah in magaalada Baydhabo loo galo saacadaha soo aadan iyadoo diiradda la saarayo ilaalinta bulshada guud ahaan goobaha ama xarumaha ciidanka gaar ahaan kuwii ay ka baxeen ciidamadii madaxweyne Laftagareen sidoo kale waxaa la werinayaa in kulanka uu qayb ka ahaa abaabulkan sidii markii ciidamadu ay qabsadaan isla saacadaas
in madaxweyne lafta gareen uu kasoo degi karo isla magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed. laakiin arrintaas ayaa adkaan doonta. lafta gareen sida la sheegayay saacadihii lasoo dhaafay iyadana waxaa la tilmaamay in rag siyaasiyiin ah oo si weyn xilligan garab ugu noqday inuu kulan kula qaatay magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya, iyadoo xogtaas aanan si dhameystiran loo helin. haddana saacadaha soo aadan ayaa la filayaa inay warar ka soo saaraan kulamada isdaba joogga ah ee xiriirka ee ka socda magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya. marka laga soo tago arrintaas, waxaa jira in saacadihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar ku aadan in ciidan cusub oo horle ay ka goosteen kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee fadhigoodu ahaa magaalada baydhabo. mid ka mid ah abwaanadii sida weyn looga yaqiinay maamulka koonfur galbeed ayaa ka baxay gudaha magaaladaasi, waana abwaan cali korante oo ka mid ahaa abwaanada sida weynka looga yaqaanay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. abwaanka waxaa la tilmaamay in uu la goostay ciidan tirabeel ah oo dhowr markaasi watay gaadiid in ay ku biireen misna tageen duleedka magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed, taasi oo keentay inay xaaladda sii adkaato. abwaankana la tilmaamay in hanjabaad markii uu halkaasi tagay kadib uu soo diray, iyadoo xilli kasta wax kasta la filan karo. haddaba afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed xasan cabdi maxamed muxuu ka yiri arrinta la xiriirta ciidamada isa soo taraya ee ka baxaya dhinaca deegaanada maamulka koonfur galbeed ee ku biiraya duleedka magaalada baydhabo ciidamada ku sugan ee taageersan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen? waxa uu fariin u diray shacabka reer koonfur galbeed isaga oo weliba ugu baaqay inay muujiyaan dulqaad, geesinimo iyo adkaysi, maadaama uu sheegay inay yihiin shacab aanan ogolaanaynin oona isla markaana ogolaan karin in markaasi la gumaado ama la gumaysto, isaga oo sheegay in lagu soo duulay shacabkan muhiimna ay tahay in xilli kasta la adkaysto, iyadoo weliba xuquuqdooda uu sheegay in lagu tumanayo xilligan, laakiin ay ilaalin doonaan oo ay ka daba tegi doonaan wax kasta oo la xiriira ilaalinta sharafta shacabka koonfur galbeed lagu markaasi dadaali doono. sidoo kale inay ilaashadaan midnimadooda, wadajirkooda iyo sidoo kale kartidoodaba, iyada oo weliba tiirka lagu ilaalinayo qodobadaasi oo dhan uu yahay heshiisiin amaba aan iraahday heshiis bulsho oo dhinacyadan markaasi ay isu qaadaan, iyadoo wax colaada aan la dhexdhigan bulshada. laakiin waxa uu tilmaamay ugaasku in xilli kasta weeraradu ay dhici karaan, soona dhoweeyaan ciidamada maamulka koonfur galbeed. horey sidaas oo kale waxa uu u sheegay in saacado un ay ka harsan tahay xilliga rasmiga ah ee ay ku biiri doonaan ciidamadan duleedka magaalada baydhabo jooga howlgalka tooska ah ee lagu xoreynayo, sida uu sheegay ugaasku magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah koonfur galbeed ee Soomaaliya. xilli kasta ay wax isbedeli karaan. magaaladan waxaa la warinaya in dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xooggan uu ka socdo, waxaana sidoo kale jira in heegan buuxda la geliyay ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa duleedka magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah, ama gaar ahaan gudaha magaalada baydhabo saldhigyada iyo ilaa guud ahaanba fadhiyada kala duwan ee ciidamadan ay ku leeyihiin isla gudaha magaalada. jalalaqsi ayaan eegi lahaa saaxiibayaal, waqtiga oo markaasi aad u soo kooban awgiis waxaan jeclahay in qodob kale aan ku eego xaaladda guud ee magaalada jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, taasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayeen dagaallo qaraar oo u dhaxeeyay laba dhinac oo gacan saddexaadna la tilmaamay oo shabaab ah inay dagaaladaasi ku biireen. arrimahaasi oo idil barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. qodobkan qodobka xiga ayaana idinkula wadaagi doonaa.